warmuteedka soo seexay oo saddexda ahaa ayagu waxay yiraahdeen anagu aragtideeni iyo go'aankeenni dhuusamareeb saddexan ku soo dhiiban ee adinka loo baahan yahay inaad ka wada hadashaan oo ka xaasha ma habbooneed in iyadana shuruur laga dhigo in dad go'aamadoodii iyo go'aankoodii la og yahay in haddana la yiraahdo miiska haddana soo fariisan shirka ma wadayn xasan wax laga yaabaa adiga inay kugu eg tahay hadda inay dhaheen anagu go'aan baan gaadhnay mar hore mana imaanayno ama mar dambe maaragtay waxba kama hadlayno inay dhaheen taa adiga dee xogogaal waa anagu xogogaal uma nihin laakiin wax kasta oo soo baxay iyo wax kasta oo hadda soo bixi doonaba waa wax wada leeyahay la wada leeyahay haddii cid wax ka qabto mar kasta waa la isugu iman waxbaa laga bedeli waxbaa lagu dari waxbaa la isla sheegi marka qof maaragtay isagu dhihi kara aniga waxaasaan mar hore idhi meelana uma dhaqaaqayo waxna kama bedelahayo nidaamka dawliga kuma jirto waxa waa la bedbedeli waa la rogrogi waa la qali waa la maaragtay qaybini marka ugu dambeysana wax la isla ogol yahay ayaa lagu soo dhameeyay waxaan ku arkay qoraal ay soo saareen saddexdooda qoraalkooda waa arkay laakiin sidaa hadda adigu akhriyayso laakiin qodobka labaad wuxuu leeyahay waa soo dhaweyneynaa waa macnaha si adiga markaad fiiriso sarbeeb waa soo dhaweyneynaa labada madaxweyne iyo dawladdu inay wada shiraan shirkooda muqdisho ka dhacay waa soo dhaweyneynaa taaba macnaha waxay tusinaysaa waa akhriya warmurtiyeedka ay soo saareen madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed saaxiibaday wax haba yaraatee la cudur laga dhigaa kuma jirin aad u fiicnaa aad uu maaragtay uu ahaa positive wuxuuna ahaa qodobo runtii ay ka muuqatay bisayl iyo inay diyaar u yihiin inay aaraadooda ku biiriyaan marka ay yimaadaan ama iyaga loo tago in la isu taga waa lagaba maarmaan ama iyaga ha loo tago ama iyagu ha yimaadaan haddii ay yimaadaan waa runtii waa bogaadin bay noo tahay inaanu bogaadino haddii loo tagana problema noqonayso laakiin waxaa loo baahan yahay wax la wada leeyahay qofna ma odhan karo waxaasaan maalin hore idhi waxaasaan maalin hore sheegay halkaasaan taagnahay cid waliba waa inay ka dhaqaaqda meesha ay taagantahay waa garta laakiin cuqdad waxaa jirta sida muuqata madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor dhuusamareeb waxbuu ku waday soo dhaweyn badan buu sameeyey waxyaaba dhuusamareeb 3 wuxuu isku dayay xataa in uu madaxweyne deni xataa ugu tago magaalada Garowe waa isgaarsiintii waa sida muuqata waxa la yiri isgaarsiintii lagu waayay iyadoo taa macnaheedu oo loo dhigayay dadka siyaasiyiinta markaan wareysta loo dhigayay in deni markaas uusan doonaynin in Garowe oo qoorqoor iyo wafdigiisu ay tagaan marka arintaasi soo arin cuqdad dhali karta oo keeni karta in aniguba waa liga diiday kan soo tagaya amal soo ma imaan karto waxaan ka leeyahay bisaylka mas'uuliyiinta iyo madaxweyne qoorqoor intuu inta ka sareeyo aniga shalad diidaadna maanta waa ku diidaya maanta meesha ma taalo wixii khaldamay in la saxana waa loo baahan yahay haddii dhuusamareeb maxaa laygu iman waayey uu leeyahay si kale uu dhihi karaa ama saaxiibadiisa uu isu weydiin karaan laakiin waxaa yaala meesha shacabka Soomaaliyeed iyo masiirka Soomaaliyeed iyo arrintii Soomaaliyeed meesha taalo loona baahan yahay in xal degdeg ah loo helo waxaan rajaynayaa inta aan ka aqaano madaxweyne qoorqoor inuu fahamsan yahay iyo lafta gareen Cabdicasiis iyo Waare intuba inay arki karaan fahmina karaan inta aan ka aqaano una dabci karaan ummadda Soomaaliyeed shirkii dhuusamareeb 3 ma oolin miya xildhibaan waa yaalay laakiin waxa la isku raacsan yahay inuu wax ka dhiman yahayna waa caddahay in la dhameystirana waa laga maarmaan waa yaalay laakiin waxba ka dhiman in la saxo oo lagu daro oo laga qanciyo waa laga maarmaan waayahay hadda aragtidaada iyo waa la socotaa wafdiga dowlad goboleedka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam marka hadda maxaa ku muuqda heshiis ma la yahay shirkii waxyaabihii la isku haystay ma laga heshiiyey bal arintaas nooga waran inta muuqata hadda ama socota hadda u dhaxaysa madaxweynaha federaalka iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa uu borgarays xoog la sameeyay horumar xoog la sameeyay horumarkaas oo ah in meelo badan la iskaga soo dhawaaday waxaan rajaynaynaa in la isku sii dhawaado mar walbana markii dhuusamareeb aynu ku wada hadlaynayna waa sheegnay annaguna doorkayo waxa weeye in la isku sii dhaweeyo
dadka Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaynaa in isu soo dhaweynta laga wada shaqeeyo madaxweynayaasha kalena ay doorkooda ka qaataan waa odayaal isu soo dhaweyntaas waxaan aaminsanahay inuu jiro horumar xoog leh Soomaaliyana ay geli doonto marxaladii doorashooyinka oo la isla wada ogol yahay oo dariiqi saxda ay aada mar haddii horumar in la gaaro ay tahay shirkiina ay tahay markaa in uu furmo waxaa jirtay xildhibaano ka tirsan intaan taa u gelin waxaan rabaa su'aalan ka hormarsado cabir wanaagsan baad ka bixisay markaan kugu wareysanayay magaalada Dhuusamareeb in ay doorashada hal qof iyo hal cod inaan la aadi doonin doorasho dadban ama wax u dhow in la gaari doono sidaa bay ahayd hadalkaaga hadda qodobada la isku hayo waa xisbiye ma lagu geli karaa tirada deegaanada iyo doorka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan kaalinta la sii saadaal balka bixi bal maxaad u malaynaysaa in laga bixin karo ama lagu kordhin karo xasan waa mahadsan tahay maalintii Dhuusamareeb aynu wareysiga iga qaaday markii aan idhi doorasho qof iyo cod Soomaaliya kama dhici karto dad badan baa reaction ka muujiyay una qaatay anigu inaan jecelahay doorasho qof iyo cod aan ahayn inay dhacdo ama doorasho dadban taan ma ahayn laakiin waxa ii muuqatay reality-ga xaqiiqda in la aado Soomaaliya maanta doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo waa loo baahan yahay laakiin way uma taalo sida uga dhici lahayd hal qodobna waxa la rabaa tiimka oo doorasho qof iyo cod aad ugu campaign gareynaya laba qodob inay kala reebaan waa qodobka dhahaya Soomaaliya waxa ka dhacaysa doorasho qof iyo cod waqtigeedayna ku dhacaysa ma isqaadan karaan marka waxa la rabaa dadka wax macquul ah in loo sheego oo la yiraahdo waxana macquul ah doorasho qof iyo cod dhacaysa waqtigeedayna ku dhacaysa waa impossible doorasho qof iyo cod way dhici kartaa laakiin goor bay dhici kartaa shaqay u baahan tahay waana fasiray ayaantii hore inta meelood oo ay u baahan tahay haddii taasi dhici weyda maxaa dhacaya haddii dadka qaarkood extension iyo muddo kororsi ka fakarayaan ma iman karayso Soomaaliya waxyaabahaasi waxa weeye not only Soomaaliya Africa oo dhan waagii maxaan ku yiraahdaa militarigu intay nin meesha ka caydiyaan ay dhigi jireen meeshaan la wareegnay waa laga gudbay waagii meesha qof iska joogi jiray oo dictatorship muddo iska joogi jiray waa laga gudbay mandate baa leedahay mandate-kaagu markuu dhamaado wixii kale la aadaya mandate-kaagu wuxuu ku siiyo marka doorasho qof iyo cod haddii la aadi waayay waxa kale haray waa labo in la yiraahdo waqti baa la kordhiyay oo dadka qaarkood ay halkaas rabaan inay xoogaa wax soo geliyaan iyo in doorasho aan qof iyo cod ahayn la aado doorasho kastoo qof iyo cod aan ahayn waa doorasho dadban waqti kororsi meesha ma soo galaya marka waxaa jira loopholes dadka qaarkii ay doonayaan inay ku dhuuntaan ama meelo dulduleelo ay doonayaan in muddo kororsi ay ku keenaan laakiin ayna hadda rabin inay dhahaan muddo kororsi example xisbiya lagu galaya xisbiya ma dhisna Soomaaliya xisbiya kama dhisna xaqiiqda la rabaa waxaa jira isku day xisbiyo inay maartay jiraan laakiin in xisbiyadaas la dhameystiro muddo u baahan tahay xisbiyada laftirkooda waxay u baahan yihiin shuruucdoodii iyo hawlahoodii iyo mandate-koodii iyo waxoodii in aad loo diyaariyo marka iyaga laftirkoodu dadka xisbiyada ay meel fiican ay wax keeneen laakiin ma diyaarsana wali meeshii laga aadi lahaa loomana diyaarin sidaas darteed haddii la yiraahdo hadda xisbiya lagu galaya xisbiyada waxay noqonaysaa in xisbiyada la diyaariyo inta xisbiyada la diyaarinaya marka meeqay noqon kartaa ma sanadba ma laba ma dhowr biloodba never know taasna hawsheeda u baahan tahay waxyaabaha kale ee faraha badan ee conditionska laga yaabo inay Dhuusamareeb 3 ku jireen dhamaantood waxay muujinayaan signal waxay bixinayaan muddo dheeraysi muujinayaan marka waxa la rabaa signalka in la soo gaabiyo oo la yiraahdo maya signaladaas meesha laga saaro siiqadu siday u qoran tahay wixii laga bedelo la yiraahdo dariiqaas la maro doorashada la aado qof kasta muddadiisa iyo qaabkiisa uu ku qaato marka doorka guddiga madaxa bannaan inay door ku yeelan karaan midda la doonayo hadda in waqtigeeda lagu qabto waxay ku xidhan tahay mas'uuliyiintu sida ay u dhigaan marka ma rabo anigu shakhsiyan guddiga doorashooyinka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha dhistay federaalka
xilligii waliba anagu aan joogay shakhsiyan personal aniga mandate-ka u hayay in guddigaas la dhiso dhisidiisana iska lahaa meelmarintiisa ilaa baarlamaanka uu ka maro ilaa uu shaqo galo marka inuu shaqeeyo waa jeclaan lahaa waxayse ku xidhan tahay environmentiga hadda yaalla iyo xaaladda taagan iyo political agreementiga soo baxa heshiiskaas siyaasadeed ee soo bixi doona ayay ku xidhan tahay guddigaasi siduu u howlgeli lahaa laakiin waxaan aaminsanahay inay loo baahan yahay hawl badan in la qabto waayahay waxaa jiray xildhibaano federaalka ka tirsan iyo siyaasiyiin aad wax uga tabanaya madaxweynaha Jubbaland oo qaarkood ay sheegeen madaxweynahana kula taliyeen kana dalbadeen in Axmed Madoobe la soo xiro oo san magaalada Muuse ka bixin marka sidee aragtaas u aragtaa casaro runtii waa dhageystay clipskaas actually hal qof inuu ahaa baan filayaa nin la yiraahdo Amin Jesow runtii qofku inuu ka lumo dariiqyadu iskaga darsamaan mushkiladeeda ay leedahay historiga Jesow marka la fiiriyo Jesow waxay inuu ka dhunto maxaan ku yiraahdaa saxaafadda iyo bulshadu meelaha isaga timaado inuu ka dhuntay ahayd inuu yimaado publicly uga hadlo meel ka dhacday ku tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadaha islaamka oo dhan inagoo og inuu shakhsiyan taageeray wax aan diinta islaamka xataa ku habboonayn inuu taageeray oo ah jinsiga dadka jinsiga inay xataa isguursan karaan inuu taageeray marka Jesow de aniga si aan ugu jawaabo ma aqaano sababtoo ah dhinaca uu bulshada waa laba qaybood waa maxaan ku yiraahdaa genderkooda ama maxaan ku yiraahdaa lab iyo dhadig marka de si aan ugu jawaabo ma aqaano taasuna dadka qaarkood cod la isu geeyo way ayay oran jireen ma amay wallahi haday tahay hadaysan ahayn waxa aan meesha ku aragnay waxay tahay Jesow aniga de qofku markuu nin yahay sida loogu jawaabana waa la yaqaan hadduu dumar yahay sida loogu jawaabana waa la garanaya marka meel u dhaxaysa aniga si loogu jawaabo ma aqaan waayahay okay marka haddii siyaasiyan arrintan oo ka hadlay markaad eegto aragti ahaan oo leeyahay waxyaabo badan lagu aadeynayaa in badan uu soo qaatay qabiilo badan ayuu leeyahay oo gobolka degan ayaa maaragtay xoogaa xuquuqdoodii la tuudsiyay arrimaha noocaas oo kala adaa meesha ka yimid ma ka jiraan xasan oo horaan kugu sheegay wareysigeennii hore tabashada meel kastay taallaa maalinta hore waxaan ku yidhi beelaha laga yaabo in hadda dad badan ay ku tuhmayaan sad bursi inay wataan ayaa ugu tabasho badan marka aad tagto Jubbaland gudaheeda tabashada Axmed Maxamed Islaam laga tabanayana waxaa laga yaabaa in laga badbadinayo oo sida ay tahay iyadoo wax ka jiraan laga yaabo in laga badbadinayo waada beelaha wax tabanaya aniga ma dhihi karo waa khaldantiin ama tabashadiina ma jirto laakiin waxaan aaminsanahay sida wax loo sheegayo waxa ku jirta nacayb ka fog maxaan ku yiraahdaa tabashada oo laga yaabo dadka qaarkood aan arkaynay inay dadka deegaanka jooga ama beelaha qaarkood ay ku tilmaamayeen inaynan xaqba u lahayn inay meesha joogaan inayna maaragtay aysan ahaynba inay meesha ku noolaadaan iyo wax la mid ah marka nacayb intaa ka fog baa jira oo maasan qodobada la soo qaado waxa weeyaan waxaa la yiri doorashadii Axmed Madoobe waxyaabaha aadka uga soo horjeeday waxaa ka mid ahaa in la yiri 3 qofood xildhibaanada hal qof aan ka qaadanaya inuu yiri markii dambana si walba ahaatay waa taageertay haddii madaxweyne Farmaajo sidaas oo kale uu yiraahdana looma ogolaanayo marka waxaadan qof kale u ogolaanaynin saad ugu ogolaatay waayo su'aasha meesha taal dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga markii Axmed aanu isku haynay arrinta siyaasadda Jubbaland qaar badan oo maxaan ku yiraahdaa hadda criticize gareynaya ama heshiiskanagii ama waxyaabahaas aad culays u saaraya markaas waxay la safnaayeen Axmed oo ay kula safnaayeen laakiin stage-ka hadda waa laga soo gudbay dadkii reer Jubbaland ee wax isku hayay intii sii badnayd in kala waa jirta oo laga yaabo inay wali wax tabanayaan ama aan qaadanin
kiniinka qaraari anagoo aan liqi kari waaye in ay tanaasulaadkaas qaataan laakiin arrintaas waa laga soo gudbay waa laga heshiiyey adduunka wax kasta oo khilaaf oo dhacana waa laga heshiiyaa waxyaabaha anagu waxay ahaayeen iska canaan ceeleed iyo maxaa la dhahaa adigu ceel mataqaanide canaan walaaleed bay ahayd waxaynan ku salaysnayd waxyaabaha la isku qabtay caadiga ah laakiin waxaa laga yaabaa waxaan hadda dhacayo oo dhani inay ahaayaan wax qarsoon oo soo ifbaxay xilligii maaragtay arrinta doorashooyinka Jubbaland ay taagneyd muuqatayna inuu jiro nacayb ka fog maxaan ku idhaa arrinta siyaasadda la isku hayo oo la doonayaba meesha oo dhan inay ama dunto ama la burburiyo ama lagu kala tago la doonayo taasoo markay soo ifbaxdayna annagu aan garanay inaanu maxaan ku idhaahdaa hoos u xallino wixii maaragtay yaalay meesha arrinta processka iyo doorashooyinkana qof kasta oo isku daya inuu doorashooyinka wax ka khaldan dhibaato badan buu mari doonaa muqdisho iyo federaalkuna waaba kasii xag jiraanba marka stability-ga iyo maxaan ku idhaahdaa wanaagga iyo qori isu dhiibka waxaa la rabaa historically siduu u socday from cabdiqaasim cabdullaahi yuusuf sheekh shariif maxaan ku idhaha xasan sheekh historiga waa inuu sidaa u dhacaa madaxweyne farmaajona waa lagu ixtiraamayaa intuu kursiga hayo hadduu kusoo noqdona waa la ixtiraamay hadduu ka tagana maxaan ku idhahdaa gabagabada inkastoo marayno waxaan rabaa laba su-aal ayaa ii dhiman arrintan waxaa la leeyahay ra-iisul wasaaraha 30 casho dastuurka kuma qorno ilaa haddana wax maaragtay dadka hadlayo siyaasiyiin oo maaragtay wax badan oo culays badan ku saaraya in dastuurkii hadiiba lagu xadgudbay ama wax lagu xadbay inay jiraan ma moodid inay muuqato maxay hadii madaxweynayaashii ka horeeyay madaxweynaha macnaha farmaajo madaxweynaha ka horeeyay hadiiba ay heli karaan inay 30 casho aan dastuur ku qoreen maxay iyagu isku koobayeen oo aan madaxweyne farmaajo oo awoodda ugu helay inuu waqtigaas waqti ka badan haysto xasan oo warta waxaan rabaa inaan kuu sheego ummadda Soomaalida la rabtaa inay maqasho qodob maqan ma jiro qodob kasta oo aad raadiso dastuuriyan uu yaalaa Soomaaliya oo Soomaaliya maanta ma dhalan shalay ma dhalan dastuurkan ku meel gaarka kama bilaaban charterkii ka horeeyay bagaati kuma ahayn waxaasoo dhan wax ka weyn bay leedahay oo ah dastuurkii 60kii oo maxaan ku idhaahdaa Soomaaliya base u ahaa qodob kasta oo meeshan laga waayana waxaa loo noqonayaa dastuurkii 60kii marka qodob maqan oo la leeyahay qodobka meeshan kuma qorra waa lagu tilmaamay halkan hadaad ka wadaagay because shirarkii hadda la soo qabanayay ama embagaati ama carta ama halkan kulligood waxay ahaayeen wax wada maxaan ku idhaahdaa aan dawlad la raadinahay laakiin 60kii halkaas oo wadanku nabad ahaa xorriyad qaadanayay dastuurka dad professional qoreen waxyaabo badan baa jiray oo wax waliba ku dhan yihiin marka runtii waa nasiib darro waxa jira oo kale marka dastuurka laga tago fiiri hadda Soomaaliya diinta islaamka ku dhaqantaa waa dad islaama haddana waxa jira dhaqan qodob dhaqana oo wax laga yaabaa dadku ay u aaminsan yihiin inuu diin noqday oo kale example dhaqanka in la ilaaliyo qof qodob dhaqanka hadaad ku xadgudubto dadka Soomaaliyeed serious meel adag bay istaagayaan marka qodobkan ah prime ministerka in 30 cisho lagu magacaabo dastuuriyan iyo sharci ahaan wuxuu noqday dhaqanka siyaasaddu ka mid noqday in lagu magacaabo common law-gaas understanding qof kasta oo kula yaabaya 30 cisho hadaad dhaafisid marka adiga maxaa u dhaafinay taa waxaaba ka sii daran xaaladda hadda maanta dalku ku jiro ra'iisul wasaaraha waa laga qaaday xilka sida looga qaaday xilligeeda laga hadli karaa hadii oo u baahan in laga hadlo waa laga qaaday laakiin xilligan maanta la joogo wadanku 30 cisho ma qaadi karaa prime minister laan inuu ahaado waa su'aal la isweydiin karo waxa ay ku haboonayd hadii uu ka qaaday 48 saacadood in la dhaafin fag uu soo tuuro maxaan ku idhaa qofka uu isleeyahay waa ku haboon yahay marka waa hadda caado waxaa noqotay hadii dastuurkii ama lagu xadgudbo ama dhaqankii siyaasiga ah lagu xadgudbo inaan maxna meel ka soo laga soo qaadin taa macnaheedu xildhibaanada adigu aad ka mid tahay macnaha oo la rabay arrintaas jawaab inay ka bixiyaan ilaa isku haysto marka hadii ay aamuseen macnahu waa ku martamiya
sharciga horta waxaa la rabaa inuu ilaaliyo madaxweynuhu dastuurka madaxweynuhu qodobka shaqadiisa mas'uuliyadiisa ugu weyn waa ilaalinta dastuurka laakiin adiga ku xisaabtamay waa gartay waa ilaalinta dastuurka qodobka shaqadiisa madaxweynaha ugu weyn xildhibaanaduna waa sharci dejiyayaal ayagu sharci ilaaliyayaal ma aha waa dejinayaan haddii lagu xadgudbana dabcan xaqay u leeyihiin inay miiska keenaan oo ay dhahaan arrintan waa lagu xadgudbay weaknessku meelo badan uu jiraa ama dabacsanaantu meelo badan uu jiraa aad buu xoog leh ku yeelan karaa baarlamaanku madaxweynuhu mid buu ku yeelan karaa guddoonka baarlamaanku mid buu ku yeelan karaa so and so laakiin qodobka meesha ku jira waxay tahay sideedaba wadanku marka uu hadda xaaladda hadda joogo oo kale sanadka ugu dambeeya uu galo ama bilaha ugu dambeeya wax waliba waa sidoodii ma ahaadaan because transition baa la galay waa xilli kala guuraha la galay xilligaa kala guurka waa xilli u baahan in aada looga taxadaro wax badanna la ilaaliyo baarlamaanku hadda maxaan ku idhaahdaa inay madaxweyne farmaajo ku qayliyaan oo ku buuqaan waa caqabaday noqonaysaa waxaa laga yaabaa processkan soconaya hadda in doorasho lagu gaadha dadku ay wada tixgelinayaan oo ay leeyihiin let's see bal aan eegno maanta sida doorasho lagu aadi karayo oo aanay hadda doorashada ka weyn hadda prime minister kastoo la magacaabo iyo cid kasta oo la keenaa waxaa dadka kala priority badan wadanku waa inuu doorasho aada oo system cusub la aado waxaan rabaa laakiin waxaa lagama maarmaana prime ministerka positionkiisa in la buuxiyo because ama power sharing ha noqoto ama systemka maxaan ku idhahdaa wadanka ha noqoto ama wadanka xukuumad baa hogaamisa oo fulinti ah amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba waxaa mas-uul ka ah waayahay maalmo dhoweed baarlamaanka 13 matalaada gobolka banaadir ayuu sameeyey gobolkii banaadir oo la leeyahay 3 milyan ee ka badan ku noolna maanta matalaad ma haystaan see kula tahay doorasho walbo timaadana waxaad moodaa in la kormarayo aan waxba laga soo qaadayn see arrimahaas kula yihiin gobolka banaadir horta waxaan ka xumahay in laga dhigtay political strategy ama political steps lagu dhaqaaqo qofkii rabo inuu xoogaa dhaqdhaqaaqaba inuu gobolka banaadir yiraahdo laakiin none of ama kuwa hadda 13 soo qoray ama kuwii ka horeeyay ama kuwa hadda waxay hal qof oo gobolka banaadir in wax la siiyo u diyaarsan ama ka shaqeynaya ma jiro at all shacabka gobolka banaadir inay maqlaan waa laga maarmaan wala madaxweyne wala baarlamaanka kuwa soo qoray wala kuwa hore siyaasiyiin oo doodayay cid u socota in gobolka banaadir wax la siiyo ma jirto xaqiiqdu waa taas laakiin waxa la rabaa politically mobilization in laga dhigto la yiraahdo aniga waxba idin ogolahay hebel baa idin diidan in la yiraahdo gobolka banaadir runtii waa caasimadii wuxuu u baahan yahay in maqaamka caasimadda in gobolka banaadir in la qeexo oo dastuur loo sameeyo waa ka xumahay waxaana khalad ka dhacaya uu yahay dadka Soomaalida hadii mar walba hadda 2020 baa la gelayaa systemkan siyaasadda ku jira oo dhan haday doonta ka degaan oo system cusub oo imika meel kale ka yimid ay la wareegaan after farmaajo waxa laga yaabaa inay kow ka bilaabaan oo wixii soo dhacay aan dib u eegin waxaan saa u leeyahay systemka hadda taagan waxa ka maqan inuu dib u eego maxaa ka horeeyo la soo sameeyay maqaamka caasimadda ama gobolka banaadir 2010 aan dejinay uu degsan yahay dastuura laga diyaariyay buuga laga qoray gobolka banaadir markaas wuxuu ahaa 16 degmo hadda waxaan u maleynayaa 17 degmo in laga dhigay 16 degmo ee gobolka banaadir degmo kasta waxaa laga soo qaaday 5 dhalinyaro ah iyo 5 haween ah adiga dad 5 laga soo qaaday dad fara badan oo noocaas ah baa waxa la isugu keenay hotelkan hadda magaca laga bedelanay naasab looto la dhihi jiray dadkii ka qayb galay waa joogan waa buuxaan buugiina waa yaala waa la hayaa wasaaradda arrimaha gudaha markaas hogaaminaysay oo aniga iyo wasiir Cabdiqaadir Cali Cumar aan ku jirnay xilligii dawladda Sheekh Shariif ay ahayd dastuuran diyaarinay waa almost 14 days loo fadhiyay contribution lagu daray wax walba lagu diyaariyay guddi kale oo guddiga maxaan ku idhahdaa diyaarinta dastuurka gobolka banaadir baan diyaarinay guddiga kale ee dastuurkii Soomaaliya qorayay oo professor Jawaari markaa hogaaminayay aan parallel kala dhignay in dastuurkan oo gobolka banaadir loo diyaarinayo uusan contradictory ku noqonin ama ka hor imaanin midkan qaranka loo diyaarinayo oo isla socdaan la diyaariyay waa la soo diyaariyay waa yaala anaga asagoo halkaas maraya wasaaradda la ka bedelay
sidaas darteed waxaa la rabaa dadku inay ribeergareeyaan caasimadda waa loo sameeyey meeqaamkii iyo hawshii iyo qaabkii bugaagta dib ha ugu noqdaan ha la soo baxaan dhinaca kalena waataan kuu sheegay none of these politicians oo u socda gobolka banaadir in wax la siiyaa ma jirto dadka banaadir ayaan lagu beerjilecsanin dad kalena ayaan laga dhigin inay wax u diidan yihiin laakiin gobolka talaata 13 waxaa ka horeysa in maqaam loo sameeyo talaata 13 waxay ahayd political maxaa la yiraahdaa game oo lagaga boodayay marxalad markaa taagneyd ama lagu indhasar caadinayay ama lagaga gudbayay dadka banaadirna ay u qaateen inay run tahay oo maxaan ku yiraahdaa iyaga iyo siyaasiyiintoodaba la isku dayay inay la tuso markii ay aadeen dan maxaan ku yiraahdaa laga dhex baxay marka taas aad maasan tahay waxaan fursad u helnay oo sida aad daawanayseen aan waraysi dheer la yeeshay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo isagu musharax hore uga ahaa dowlad goboleedka Jubbaland hadda doorashadii ugu dambeysay Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo haatan macnaha markaa ku guuleystay inkastoo ay jireen khilaaf oo doorashadaasna ka qayb qaadanin laakiin markii dambe laga heshiiyey daawadayaal waraysigii inta ayaan kusoo gabagabeynayaa aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaan Cabdiraxiin Xuseen Xasan Caylaawe iyo waxaan u mahadcelinayaa Faarax UK oo kaamirooyinka asaguna noo kala rogayay tani kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh